السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta guri farxad maxay sidaa waxaan sidaa quraacda caruurta ma sha Allah. meeshan waxa ku haysanaa kaarbonaati hal xabo ah, meeshan cusbo laba qaando xawaaji, meeshan sidoo kale jiisa aan ku soo xoqday, meeshan saddex koobkaas aan ku soo cabiray oo bur ah, afar xabo ukun, hal bakeeri iyo bar oo caano ah, meeshan waxa waaye hal bakeeri oo saliid ah, yaanyo ujeedin ayadana afar xabo yariis waaye, laba xabo baradho, sidoo kale kabsar caleen, barbarooni laba xabo ah iyo basal caadi daahista okay waaye. marka alaabtana soo dhaqanaa waa soo diyaarsanaa insha Allah. intaas ila saakana waa isku soo laabanay ujeedin ma basashi barbaroonigi baradhada wax dhan waa soo dhaqday waa soo diyaariyay ma sha Allah. marka haddana oo bilaabaa insha Allah wiilkana ku diyaarsanayna, sidoo kale wiilkan waa wiilka firinka la gali lahaa insha Allah sana suuqa laga marina hoos ma sha Allah. haddana oo bilaabaa kana weelkeena ma sha Allah. marka waxa ku shubaneena si afarta xabo ukunta insha Allah aku bilaawaneena ma sha Allah. ahsan quraac waaye. waxa idin quraacdan caruurta aad u jecel yihiin jirkooda nafaqaysiinaysa ma sha Allah. inaan wax badan idin faa'iideeyo ayaan diyaar u ahay mar walba. idinkana insha Allah iga baqeelina subscribe-ka, like-ka, share-ka, commentigiin dhiirgelin oo yahay ma sha Allah. marka afarta xabo ukun waa lagu wada jabinaa, wax la reebayo ma lahan, waa nafaqo quraac nafaqo leh ma sha Allah. marka ukunta waa kana waa la qasaa, marka waa la isdhexgelinaa cusbada iyo xawaajiga haysatay iyo ukunta hal mar waa la isku qasaa ma sha Allah. meel walba adduunka joogtaan waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channel-ka ma sha Allah. quraacdan aad caafimaad u yahay, caafimaad waaye. caruurteen waa inaan ka fikirnaa mar walba oo cuntooyinka nafaqada leh aan sameysana mar walba. cunto nafaqo leh siisid waa mar walba caafimaadkiisa tamaam ku noqdo ma fahanteen ma sha Allah. marka waxa ku shubeynaa insha Allah si fiican la isku dhexgelinaa ma sha Allah عليك. si fiican la isku dhexgelinaa markaan waa isdhexgala markaas dhahdid. marka khudaartii wax walba aan soo jarjartay soo diyaarsaday aan marka ku shubaneena aad u basiid u yahay. quraacda subaxa loogu tuuro caruurta ma sha Allah. waa idin duceynayaan idin dhaada alaabtan u sameysaan ma sha Allah. mar walba cunuga quraac caafimaad badan u sameysid waa mar walba caafimaadkiisa tamaam ku noqdaa. marka halka koob saliid lagu shubaa ma sha Allah. waxa kale ku shubeynaa caanaha hal koob iyo bar waaye, qiyaastan iyo ka dhumin wax walba qiyaasada haysatid cuntadaas macaan ay ku noqonaysaa waana ku toosaysaa ma sha Allah. marka waa la isdhexgelinaa, waa la isku qasaa aad u basiid u yahay. ilmaha subaxa loogu tuuro ducadooda baxaysa alaabtan u sameysiin ilmaha ma sha Allah عليك. ilmaha caruurta caafimaadkooda laga fikiro mar walba cunuga caafimaad u sameysid waa mar walba caafimaadkiisa tamaam isku sii noqda oo isbitaalna mar walba ma ka daba wareegaysid ma sha Allah. caafimaadka Allah haayo ma sha Allah عليك. si fiican la isku dhexgelinaa ujeedin maahino ma sha Allah. markaan waxa ku shubeynaa baking powder-keena ujeedin baking powder waayo u dara waxa la rabaa burka inuu soo fuuro fahanteen. marka saddex koob oo meeshan waxa ugu jira oo bur ah ma fahanteen, saddex koob bur ah iyo laba koob oo waxa isku qasoona hal koob iyo bar oo caano ah iyo hal koob saliid ah. intaas waa qiyaasta ma sha Allah عليك. marka burka kiskisa loo shubaa hal mar ma ku shubeysid waa la walaaqa. marka mar walba ku shubtid waa walaaqaysa ma sha Allah. marka waad mar labaad channel-kii ku soo dhawaada please haday ugu cusubtahay subscribe isaar, haday ila joogto like isaar ii share gareey ma sha Allah. mar walba waxa u taaganahay sida idin soo gali lahaa cuntooyin aad ku faraxdaan ma sha Allah. gurigeyga waxaan ku sameysanaa waa idin soo galiyaa. marka burka ujeedin qaybta ugu dambaysa waa ku shubnay, marka waa la isdhexgelinaa waa la walaaqa ma sha Allah عليك. shaqadiis intaas waa dhamaatay intaas waa si fiican la isku dhexgelinaa. marka waad mar labaad channel ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan ma sha Allah. marka waa la isdhexgelinaa ujeedin markaan ujeedin si fiican la isku dhexgelinaa diyaar oo noo yahaybo ma sha Allah. marka waad mar labaad channel-kii ku soo dhawaada meel walba adduunka joogtaan
waxaa idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan qalbi saafi ah. marka ujeedin si fiican la isku dhexgelinaa. marka waxaan u maleysaaba inuu isdhexgalay oo diyaar oo noo yahay. marka waxaa soo diyaarsanaynaa saxankii aan ku shuba lahayn. maasha allah saxanka ujeedin xoogo yar subag aa ku shubta, hadaa rabto saliid aa ku shuba kartaa, hadaa rabto subag. marka waxaa rabtaa marsan kartaa korkiisa saxanka hoostiisa suu kaaga dhegin, ma fahanteen. maasha allah subaga meel walba geesaha dhinacyada meel walba ka marinaysaa. marka waa kana diyaar oo noo yahay ujeedin maho. marka alaabta noo diyaarsaneeda aan ku shubeynaa insha allah. waa kana maasha allah waa lagu wada gedinaa. maasha allah meel walba adduunka joogtaan kusoo dhawaada janaalka. waxaa idin leeyahay maasha allah cuntooyin caafimaad badan oo caruurta u fiican waa idin soo wadaa. wax walba u baahantiin hoos igu soo qora kommentiyadiin qurux badan mar walba waa akhristaa. anigana waxaa diyaar waa inaa idin tixgeliyo wax alla waxaad iga codsataan. maasha allah waa kana waa lagu wada gediyey ujeedin mahayno. maasha allah firinkan waa isii daaran yahay. waqti lama qabanayo, mar walba waa kormeereysaa karitaankiisana waqtigaas ku xiran ma idin dhahay. mar walba waa kormeereysaa. firinyaashu waa kala duwan yihiin, mid 10 daqiiqo, mid 20, mid 30. marka inta kusoo karaa insha allah waa arkeynaa si fiican. marka qaandada xataa waa laga tiraa kastiriista ku taala ujeedin mahayno. maasha allah caleyk. waa kana burkeena diyaar noo yahay. marka firinkaas ii geysanaynaa. firinka inta la geeyo waxaa ilooba jiiska kor loo shubaa. jiiskana aad u fiican yahay caruurta lafaha aad ugu dhisaa. mar walba ukun hataa u sameynaysid wax walba sameynaysid mar walba inaad ku darsataa aan kugu tali lahay ani maadaama maamo ahay. maasha allah jiiska aad u fiican yahay si fiican asagana wax la reebaayo malaha. geesaha dhan waa si fiican ugu sameynaysaa. wabilaahi tawfiiq. firinkan waa ku daaran yahay waa geenaynaa le duu ilaa yiraahdo waa isla soconaynaa insha allah. waa kana marka hadda firinka la geenaa. firinka ujeedin maho kor qaybta dhaxdan dhigay insha allah inta soo karaa waa arkeynaa. waa kana sida gaduudka ujeedin maho alaabteena diyaar waaye. maasha allah kuleelkeeda la soo baxaa insha allah. maasha allah caleyk. ujeedin maho sida qurux badan yahay. marka waxaa geenaynaa qaybta oo miiska la geenaa waa la jaranaa haduu ilaa yiraahdo. aada ugu helaysin insha allah. aadna basiid wuu u yahay. marka waa jaranaynaa hadda. maasha allah ujeedin maho sidoo mindida sida u galayso waxaa u maleysaa keeg maa jaraysaa quraac maxaa yacni waxaa jaraysa shakiya kaa galaayo. maasha allah caleyk. inta haysata allah u siyaadiyo, inta haysana allah siiyo, inta xanuunsan allah caafiyo, inta caafimaad qabta allah u siyaadiyo. maasha allah caleyk. waa kana quraacdii aan saaka idin waday. maasha allah saartida u jaranaysaa. maasha allah caleyk. maasha allah wax laga dhihi karo malaha alaabtaan. maasha allah in la dhahme wax kale ma la dhihi karo. waa ujeedin maho. maasha allah marka anaga saxankeena ku diyaarsanaynaa. maasha allah marka waa kana qaybteena waa ka goosanay. saxankeena ku diyaarsanay. meel walba adduunka joogtaan waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada janaalka. ujeedin maho sida u jilcan yahay keeg caman waaye. waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.